wanaagsan yahay waxay horseed u noqotay arrintaas inaanu toos u maamuli weyno doorashooyinkii ka dhacay Hirshabeelle iyo meesha la yiraahdo galmudug mar saddexaad waxaa caqabad nagu noqotay nidaamkii muddo kororsiga ee aanu samaynay caraabin fara badan oo ka imanaysa dhinaca Puntland iyo Jubbaland oo lagu soo abaabulay deegaanada Hirshabeelle iyo galmudug iyo gobolka Banaadir intaba ilaa iyo la soo daabulay ciidamo aan anagu ogeyn markii hore kuna xisaabtamaynin ilaa iyo dadka la fahansiiyo kuwanagii in la kala yaaciyo oo anaga dibna loogu soo adeegsado xoogagii muhiimka ahaa ee ku xisaabtamaynay saraakiishii ugu cuscuslaa ee lahayn tallaabooyinka ugu adag ee qaadi doonaan ilaa anagii dibna loogu soo adeegsaday oo na curyaamiyeen hindisahanagii ugu dambayn wuxuu ku soo dhamaaday wax la dhihi karo Gablan iyo dhaxal arrintii qorshihii muddada dheer aan sircinaynay ee 4 sano ah iyo weliba 1 sano oo lagu daray wuxuu ku soo dhamaaday oo ku soo afsharmay ugu dambayntii nidaam doorasho oo aanan anagu ku talagelin oo doorasho dadban ah in waddanka la geliyo muddadaas waxaa nalaga diiday oo aan soo marnay doorasho qof iyo cod ah inaan isku daynay inaan waddanka ka qabanno doorashada qaabkii aan ugu talagalay oo ahayd in ay nagala shaqeeyaan guddiga doorashadu awooddaas wax lagu dooranayo iyo nidaamka maamul goboleedyada aynan marnaba shaqo ku lahaanin waxa ka wada shaqeynaya ay noqdaan dawladda federaalka iyo guddiga doorashada nidaamkii aanu rabnay aan ku talagashanayn oo ahaa inaanu isugu keenno meel dad 5,000 tiradoodu dhan tahay oo 4,895 aanu ognahay inay ku ridi doonaan codadka Maxamed Cabdullaahi 120 inay ku ridi doonaan ciday rabaan ama aan anaguba u sheegayno dhahayna si bahashu ayna 100% u noqonin 99 ha noqote dad kale ku rida nidaamkii noocaas ayaan u qorshaynay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaa afka dhulka u geliyay oo ka hor yimid Jubbaland iyo Puntland ugu dambayntii taankii wuxuu soo dhamaaday oo ku soo dhamaaday nidaamkii muddo kororsiga oo kalifay in laga awood roonaado magaalada Muqdisho dagaalkii aan ku galay kaas oo sababay in aan aqballo nidaamka doorasho dadban aan aqbalay iyo inaan wareejiyo anigu nidaamka xilka hogaaminta doorashada oo aan ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha arrintaas oo ahayd khaldaadkii anigu aan ka galay nafsadayda iyo ummadda Soomaaliyeed basaan aaminsanahay midkii kuwii ugu waaweynaa inay ka mid tahay oo ahayd markii aan Maxamed Xuseen Roble ku wareejiyay dhammaan awoodihii doorashada ee waddanka anigoo aaminsan inuu yahay nin farmi kara oo wadiiqada aan u marayo doorashadana hadda kadib ay isaga tahay markii aan lahaa anigu waan xaroonayaa isagaan u dhiibayna aan aaminsanaa daaha gadaashiisa inaan u fadhiyayo midig iyo bidixna inuusan u leexanaynin dhaga kale iyo indha kalena inuusan yeelan doonin sidaan wax ugu yeedhiyo oo keliya inuu ku socon doono ciddii ka hor timaadana inaan dhihi doono ciddii awalba waddanku ka degi lahaa wakaa nin kastoo hawshan galana dadkaan baa ka hor imanaya hebel iyo hebel ah taas oo haddana fashilin ay ku sameeyeen isla Puntland iyo Jubbaland kadib markay isaga laftiisii igala wareegeen ka dhaadhiciyeen inay wada shaqayn yeelan karaan horay u riixeen inuu nidaamka doorasho dadban bilaabo baarlamaankii Maxamed Mursal oo isaga aan ku bedeli lahaa intay si gaara u faqeen ay diyaariyeen qorshihii baarlamaanka lagu kala tuuri lahaa
inay magaalada Kismaayo ka soo doortaan 4 qof oo baarlamaanka cusub ee 11aad ah si uu u cancel garoobo baarlamaankii 10aad meeshan ay uga baxdo wax awooda oo aan ku cayrin kara Maxamed Xuseen Rooble. arrintaasi waxay soo jiiday aniga oo xilkii ku wareejiyay Maxamed Xuseen Rooble in la kansalo oo la nasakho baarlamaankii Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu gudoomiyaha ka ahaa. taasina waxay sababtay inaan aniguna noqdo nin awoodii wareejiyay baarlamaan iyo gudoomiye baarlamaan aan u fariisin kara Rooble oon xil kaga qaadi karan inaysan meesha ku jirin markaas oo khadka ka baxay qaybo ka mid ah baarlamaankii 11aad u kas loo soo saaray si macnihii uu taangiyo si kaaki loogu geliyo shaarad bir ah ninka la yiraahdo Maxamed Xuseen Rooble oo iga itaal roonaado. fursadaasina waxay noqotay mid aan anigu bixiyay oo lagu guuleystay liiga guuleystay waana takaliya dhinac la iigu lagday ilaa iyo haddana arrimihii aan soo tircinayay muddada 5 sano dhammaanba gacantayda ka saartay. mudanayaal iyo marwooyin waxaasoo dhan iyaga oo dhacay waad ogtihiin inaan ahay maquuste min aan samrin. waxaanu adeegsanay waxyaabo fara badan waxaanu ku dhaqannay 5 sano lasoo dhaafay inaanu kala qaybino baarlamaanka inaanu dhex galno inaan u kala qaybino 3 qaybood oo muhiim ah oon gacanta ku hayno qayb 60 iyo dhowr ah ama 70 oo aanu wasiiro iyo wasiir ku-xigeen ka dhigno si aan codkooda 100% gacanta ugu hayno. waxaa kale oo aanu ka soo dhex soconay kooxo gaar ah oo aanu danahooda shakhsiyadeed u fulino dhaqaalena ku aaminsiino bil walbana aanu u furo oon u fasaxnay khasnadaha lacagaha ka imanaya dhinaca gadar ama khasnada gobolka Banaadir oo aanu halkaasna howlgab kaga dhigno ugu yaraan 60 kale oo baarlamaan ah. waxaa kale oo aan abaabulanay kooxo iyaguna siyaabo kale ku shaqeynaya oo baarlamaana gebi ahaanba marka laga reebo aqalkii saroon isagu nasakhanay sidii aayad ka dambaysa soo degtay oo kale ama xadiis burinaya soo degay yaanu ka asaga u nasakhanay. laakiin waxaan ku guuleysanay 100% 75 ama 80 inaan gacanta ku dhigno baarlamaanka aqalka hoose. inta kalena inaan ka soo qaadno waxa meelaha iska qaylqayliya oon macna ku fadhiyin dhawaaqooda wada dhageysto laakiin wax awood ah aan ka yeelan karin golaha dhexdiisa markii la doonana lagaba xiran karay isudda. waxaanu ku guuleysanay in aanu garaacno oon caydhino guddoomiyihii si fool xun weliba guddoomiyihii baarlamaanka ee 1aad ee horeen ugu yimid anigu nidaamka. waxaanu mar labaad ka tilaabo qaadnay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo aanu ku khasabnay in uu macnihii nala shaqeeyo kadib markii meel uu ciirsada u waayay awood aanu ku caburinay. baaritaan markaan ku samaynayna aan ogaanay inuu yahay nooc budhkumaal leh haddii la garaaco la isticmaali karo. kadib aanu u qorshaynay in garaacidda kadib dib loo isticmaalo. mudanayaal iyo marwooyin waxaanu ku guuleysanay in aanu ka helno dhaqaale xoog leh waddanka gadar inaanu ogolaano xidhmooyin shidaal ah oo in u ogolaano waddanka gadar oo aan teknolojiyad fara badan lahayn laakiin leh kambaniyo dhaqaale haysta inaanu u ogolaano xidhmooyin fara badan oonu xiriir kula yeelano oo waddanka shidaalka ku jira ka mid ah inay iyagu soo saaraan oo iyagu ay doontaan oo la yimaadaan kambaniyadii intay la shirkoodaan la qodi lahaa si ay sheerkooda uga helaan oo 10kaas xidhmo ugu yaraan gadar
kambani ah oo dhaqaale haysta iyo kambani u wato teknolojiyadii iyo dhaqaalihiiba haysta ay shirkad sharing ah ku noqdaan xidhmo walba annaguna oo ka faa'iideyna dhinaca gadar inay nagu taakulayso dhaqaale ballaaran dhismo ciidan qalabayn dhinaca hubka ah oo si farsamo oo yaryar oo kala dambaysana loo siinayo oo aan doonayna inaanu kula wareegna awoodda dalka waxaanu tixgelin dheeraa siinayna wakiilada ay gadar noo soo dirsato annagoo danaha naga ilaashanayna ilaa xaddii aan ogolaanay in kursigana lagula fadhiyo fashil walba ha nagu ahaato maxaa la dhihi jiray maxaygu dantiibuu fuudka ugu jiraa oo kale marxalado ah yaanu la soo marnay annagoo garanayna inay tahay arrin kharaad in waddanka iyo ummadda dhexdooda ay faashil ka ahaato in kursiga la igula fadhiyo haddana magaciisii dantiisu ugu jiraa inuu mahmaaha la dhahaa jirtay anu aada uma garanayo mahmaahda aada uma garanayo mahmaahdaas yaa jirtay marka mahmaahdaas annagoo adeegsanayna waxaan macnihiina soo martay oonu aqbalay inaan nalagula fadhiyo kursiga waxaas oo halgana waxaan u maraynay oona ogolaanayna in kursiga nalagula fadhiyo waa danta soomaalida danta ummadda soomaaliyeed yaanu ilaalinaynay sidii dowladnimada soomaaliyeed aanu ku dhisaynay aan waxaasoo dhib ah u maraynay waxaanu la dagaalanay Kenya oo aanu ka hortagnay ummadda soomaaliyeed waxaanu ugu qabanay toosh adag cadaawadii ka dhaxaysay Ethiopia iyo Soomaaliya waanu rarnay waxaanu u rarnay dhinaca Kenya kadib markii aan isku afgaran weynay arrimaha Jubbaland kadib markaanu ka codsanay inay ciidanka Kismaayo degan iyo Alwaq labadaba nala shaqeeyaan inay awaamirta ka qaataan dawladda federaalka ah inaanu state ciidamo geysanay inay noo fasaxaan oo nagula shaqeeyaan isbedelada aan doonaynay inaanu ka sameeyno state-ka inay nagula shaqeeyaan markii arrimahaas oo dhan ay ka hor yimaadeen oo Kenyaanku ay go'aansadeen inay yihiin ciidan u yimid hal ujeedo oo ay inay la dagaalamaan nimanka afka duuban oo keliya laakiin cid la caburinayo iyo cid aan la caburinaynin iyo ciidan xoog meel lagu geynayo iyo ciidan xoog meel laga qaado waxyaabahaas inaysan shaqadooda ahayn halkaa markii aanu dhaafin weynay waxaa nala habboonaatay in aanu foxka iyaga saarno dhankooda indhaha dadka Soomaalidan aanu xagga u wareejino xiisado aan jirinna aan abuuro oo aanu doonayno inaanu dadka Soomaalida kaga dhaadhicino cadowgooda koobaad inuu yahay Kenya mar walba cadowga madaxweynuhu wuxuu la mid noqonayaa cadowga ummadda xaalad kasta oo jirta ninkii fulin waaya danta madaxweynaha waa nin wuxuu la mid noqonayaa oo lagu qaadayaa kiiska nin fulin waayay danta ummadda Soomaaliyeed taasaan ku qaadnay waxaanu ku rognay cunaqabatayn waxaanu joojinay jaadkeedii waxaanu fursadaas siinay dhinaca Ethiopia oo iyadu noo nuglaato noo ogolaatay waxtarkeedana aanu durba ka dareenay ina siiba badnaan laakiin dhinaca magaalada Baydhabo inkastoo aan aaminsanahay haddaysan dagaalkii gelin siyaabo fara badan inay wax noo tari lahayd aan aaminsanahay mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka codsanayaa inaad mar labaad doorataan waxaanan ballan qaadayaa inaan dagaalkii halkaygii ka sii wadi doono dadaaladii inaan halkaygii ka sii wadi doono inaan isku dayi doono Hirshabeelle iyo Galmudug ujeedooyinkii aan ka lahaa si buuxda inaan u gaari doono 4 sano 2 sano ee hore gudahooda waxaan aad iyo aad try gareynayaa Jubbaland soo afjarideedu inaysan ka badan doonin 1 sano ama 1 sano iyo bad
halkaa waxaa ka suurageli doonta in aynu garab tirno puntland isla markaana ay inoo sahlanaato puntland sidii garabkeedii kale la jebiyey garabkeeda midigna sidii loo jebin lahaa ama iyada looga tallaabo qaadi lahaa doorashada ku xigta waxaan rajaynayaa in ay si buuxda haddaad ay doorataan 4 sano ee soo socota doorashada ku xigta waxaan rajaynayaa oon ballan qaadayaa in ay xaaladdu noqon doonto inaanan wax cod ah idinka baahanin idinka anigu isku filaado gaaray isku filaansho buuxa oo dhinaca codka ah isku filaansho buuxa oo dhinaca doorashada ah noocyada doorashada ay noqoto mid aan tartan iyo ka wada hadal lahayn nidaamyada lagu gelayana uu noqdo nidaamyadii naga dhicisoobay ee hadda naga katibay inaan si buuxda u gaari doono idinka oo aniga i taban taabinaya doorkii horebana idinku i doortay inkastoo aan idin sheegay kuna oroleystay waxyaabo fara badan oo Ethiopia ay ka mid tahay haddana taas way iska caadi waa arrimaha doorashada waddan walba taas oo kala sameeya cid walba oo doorasho galaysaana sameysay in waxa aynu fulinaynin ay ku oroleysato muhiim mudanayaal iyo marwooyin nin Soomaalinimada nacab Ethiopia ma iloobin laakiin dan baa ii geysay kaliya waxaan u arkay inay tahay waddanka kaliya Soomaaliya in la caburiyo dad kamida marka loo baahdo ama in meelo kamida weerar laga fuliyo haddii loo ogolaado iyada danaheeda meesha kaliya ee aan ka helayo baan u arkay inay iyada tahay macluum ma aha inaan iyada jecelahay dantayda baan doonayay inaan ku fushaday iyada sidaan idinkaba dantiina idinku fushaday doorkii hore oo kale yani idinka dhaadhiciyay inaan iyada waddanka ka dabargoynayo kana tirtirayo lana xisaabtamayo xukuumad u gacan gashana aanan noqonaynin iyaga laftooda markaan danahayga ku gaaro haddayna idilinba iyagu oo aysan isfahmin aysan dhanka caqabada igaga soo bixin waxay qorshaysnayaan iyaga laftooda dibadda u tuura banaanka u tuuro heshiisyadaanu gallay waxaa ka mid ahaa inaan soo dejiyo ciidan badda ee Ethiopia magaalada la yiraahdo Barawe heshiisyadan gallay waxaa ka mid ahaa inaan soo dejiyo ciidanka badda magaalada la yiraahdo Hobyo dekada barbara heshiis ay ku jireen iyo sheer ay ka qaateen baa jiray Ethiopia oo aniga igaba dadbanaa waxyaabahaas oo dhan heshiisyada noocaas ah nidaamka dekadaha kullay Ethiopia danbay u tahay oo ahayd innagana lafteedana danbay inoo ahayd laakiin aniga shakhsiyan danta iigu jirtay gaarka waxay ahayd inaan helo ciidamo Soomaalida la soo duldejiyo in ciidanka badda ee Ethiopia uu yimaado Hobyo inuu yimaado meesha la yiraahdo Barawe inaan waddanka gebi ahaanba cunaqabatayn ku soo rogo isteediyadan dekadaha gaarka ay isticmaalaya in la helo ciidamo qalabaysan oo ka tallaabo qaada maraakiibta jihada ku socota oo dhan leexiya oo ku xidha jihooyin kale isla waddankana u roga hal meel oo center ah oo wax laga kala qaybinayo cunaqabataynta cirka ee meelaha qaarkood saaray waxaan soo watay oo iigu dhimanayd cunaqabatayn dhinaca badda ah inaan la imaado taa oo waqtiga iyo duruufta iyo dantu ii diiday haddii aad iigu dartaan doorkan 4 sano waan gaari doonaa inaan soo dejiyo Barawe inaan soo dejiyo meesha la yiraahdo Hobyo in dekada Boosaaso iyo Garacad laga kontrolo Hobyo ciidan degan oo maraakiib dekada Kismaayo in laga kontrolo Barawe hawluhu waxay u socon lahaayeen tartiiba Barawe iyo Hobyo in la kala dejiyo 15,000 ilaa 20,000 oo ciidanka Ethiopia
muqdisho lafteeda in ay nidaam saameyn ah ku yeeshaan umuurahaas oo dhan waxay sahli lahaayeen in anigu aan sii fadhiyo muddo dheer weysan yahay waxay horseed u noqotay arrintaas inaanu toos u maamuli weyno doorashooyinkii ka dhacay Hirshabeelle iyo meesha la yiraahdo galmudug mar saddexaad waxaa caqabad nagu noqotay nidaamkii muddo kororsiga ee aanu samaynay caraabin fara badan oo ka imanaysa dhinaca Puntland iyo Jubbaland oo lagu soo abaabulay deegaanada Hirshabeelle iyo galmudug iyo gobolka Banaadir intaba ilaa iyo la soo daaqulay ciidamo aanan anagu ogeyn markii hore kuna xisaabtamaynin ilaa iyo dadka la fahansiiyo kuwanagii in la kala yaaciyo oo anaga dibna loogu soo adeegsado xoogagii muhiimka ahaa aan ku xisaabtamaynay saraakiishii ugu cuscuslaa aan lahayn tallaabooyinka ugu adag ee qaadi doonaan ilaa anagii dibna loogu soo adeegsaday oo na curyaamiyeen hindisahanagii ugu dambayn wuxuu ku soo dhammaaday wax la dhihi karo gablan iyo dhaxal arrintii qorshihii muddada dheer aan tircinaynay ee 4 sano ah iyo weliba 1 sano oo lagu daray wuxuu ku soo dhammaaday oo ku soo afjarmay ugu dambayntii nidaam doorasho oo aanan anagu ku talagelin oo doorasho dadban ah in waddanka la geliyo muddadaas waxaa nalaga diiday oo aan soo marnay doorasho qof iyo cod ah inaan isku daynay inaan waddanka ka qabanno doorashada qaabkii aan ugu talagalay oo ahayd in ay nagala shaqeeyaan guddiga doorashadu awooddaas wax lagu dooranayo iyo nidaamka maamul goboleedyada aynan marnaba shaqo ku lahaanin waxa ka wada shaqeynaya ay noqdaan dowladda federaalka iyo guddiga doorashada nidaamkii aanu rabnay aan ku talagashanayn oo ahaa inaanu isugu keenno meel dad 5,000 tiradoodu dhan tahay oo 4,895 aanu ognahay in ay ku ridi doonaan codadka maxamed cabdullaahi 120 inay ku ridi doonaan ciday rabaan ama aan anaguba u sheegayno dhahayna si bahashu ayna 100% u noqonin 99 ha noqote dad kale ku rida nidaamkii noocaas ayaan u qorshaynay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaa afka dhulka u geliyay oo ka hor yimid Jubbaland iyo Puntland ugu dambayntii timekii wuxuu soo dhammaaday oo ku soo dhammaaday nidaamkii muddo kororsiga oo kalifay in lagaga awood roonaado magaalada Muqdisho dagaalkii aan ku galay kaas oo sababay in aan aqballo nidaamka doorasho dadban aan aqbalay iyo inaan wareejiyo anigu nidaamka xilka hogaaminta doorashada oo aan ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha arrintaas oo ahayd khaldaadkii anigu aan ka galay nafsadayda iyo ummadda Soomaaliyeed basaan aaminsanahay midkii kuwii ugu waaweynaa inay ka mid tahay oo ahayd markii aan maxamed xuseen Roble ku wareejiyay dhammaan awoodihii doorashada ee waddanka anigoo aaminsan inuu yahay nin farmi kara oo wadiiqada aan u marayo doorashadana hadda kadib ay isaga tahay markii aan lahaa anigu waan xaroonayaa isagaan u dhiibayna aan aaminsanaa daaha gadaashiisa inaan u fadhiyayo midig iyo bidixna inuusan u leexanaynin dhaga kale iyo indha kalena inuusan yeelan doonin sidaan wax ugu yeedhiyo oo keliya inuu ku socon doono ciddii ka hor timaadana inaan dhihi doono ciddii awalba waddanku ka degi lahaa wakaa nin kastoo hawshan galana dadkaan baa ka hor imanaya hebel iyo hebel ah taas oo haddana fashilin ay ku sameeyeen isla Puntland iyo Jubbaland kadib markay isaga laftiisii igala wareegeen ka dhaadhiciyeen inay wada shaqayn yeelan karaan horay u riixeen inuu nidaamka doorasho dadban bilaabo
baarlamaankii maxamed mursal oo isaga aan ku bedeli lahaa intay si gaara u faqeen ay diyaariyeen qorshihii baarlamaanka lagu kala tuuri lahaa inay magaalada Kismaayo ka soo doortaan 4 qof oo baarlamaanka cusub ee 11aad ah si uu u cancel garoobo baarlamaankii 10aad meeshana ay uga baxdo wax awooda oo aan ku cayrin kara maxamed xuseen rooble arrintaasi waxay soo jiiday aniga oo xilkii ku wareejiyay maxamed xuseen rooble in la kansalo oo la nasakho baarlamaankii maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu gudoomiyaha ka ahaa taasina waxay sababtay inaan aniguna noqdo nin awoodii wareejiyay baarlamaan iyo gudoomiye baarlamaan aan u fariisin kara rooble oon xil kaga qaadi karan inaysan meesha ku jirin markaas oo khadka ka baxay qaybo ka mid ah baarlamaankii 11aad u kas loo soo saaray si macnihii uu kaanjiyo si kaaki loogu geliyo shaarad bir ah ninka la yiraahdo maxamed xuseen rooble oo iga itaal roonaado fursadaasina waxay noqotay mid aan anigu bixiyay oo lagu guuleystay liiga guuleystay waana takaliya dhinaca la igu lagday ilaa iyo haddana arrimihii aan soo tircinayay muddada 5 sano dhammaanba gacantayda ka saartay mudanayaal iyo marwooyin waxaasoo dhan iyaga oo dhacay waad ogtihiin inaan ahay maquuste min aan samrin waxaanu adeegsanay waxyaabo fara badan waxaanu ku dhaqannay 5 sano lasoo dhaafay inaanu kala qaybino baarlamaanka inaanu dhex galno inaan u kala qaybino 3 qaybood oo muhiim ah oon gacanta ku hayno qayb 60 iyo dhowr ah ama 70 oo aanu wasiiro iyo wasiir ku-xigeen ka dhigno si aan codkooda 100% gacanta ugu hayno waxaa kale oo aanu ka soo dhex soconay kooxo gaar ah oo aanu danahooda shakhsiyadeed u fulino dhaqaalena ku aaminsiino bil walbana aanu u furo oon u fasaxnay khasnadaha lacagaha ka imanaya dhinaca gadar ama khasnada gobolka banaadir oo aanu halkaasna howlgab kaga dhigno ugu yaraan 60 kale oo baarlamaan ah waxaa kale oo aan abaabulanay kooxo iyaguna siyaabo kale ku shaqaynaya oo baarlamaana gebi ahaanba marka laga reebo aqalkii saroon isagu nasaxanay sidii aayad ka dambaysa soo degtay oo kale ama xadiis burinaya soo degay yaanu ka asaga u nasaxnay laakiin waxaan ku guuleysanay 100% 75 ama 80 inaan gacanta ku dhigno baarlamaanka aqalka hoose inta kalena inaan ka soo qaadno waxa meelaha iska qaylqayliya oon macna ku fadhiyin dhawaaqooda wada dhageysto laakiin wax awood ah aan ka yeelan karin golaha dhexdiisa markii la doonana lagaba xiran karay isudda waxaanu ku guuleysanay in aanu garaacno oon caydhino guddoomiyihii si fool xun weliba guddoomiyihii baarlamaanka ee koowaad ee horeen ugu yimid anigu nidaamka waxaanu mar labaad ka tilaabo qaadnay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo aanu ku khasabnay in uu macnihii nala shaqeeyo kadib markii meel uu ciirsado u waayey awood aanu ku caburinay baaritaan markaan ku samaynayna aan ogaanay inuu yahay nooc budhkumaal leh haddii la garaaco la isticmaali karo kadib aanu u qorshaynay in garaacidda kadib dib loo isticmaalo mudanayaal iyo marwooyin waxaanu ku guuleysanay in aanu ka helno dhaqaale xoog leh waddanka gadar inaanu ogolaano xidhmooyin shidaal ah oo in u ogolaano waddanka gadar oo aan teknolojiyad fara badan lahayn laakiin leh kambaniyo dhaqaale haysta inaanu u ogolaano xidhmooyin fara badan oonu xiriir kula yeelano oo waddanka shidaalka ku jira ka mid ah inay iyagu soo saaraan
oo iyagu ay doontaan oo la yimaadaan kambaniyadii intay la shirkoodaan la qodi lahaa si ay sheerkooda uga helaan oo 10kaas xidhmo ugu yaraan gadar kambani ah oo dhaqaale haysta iyo kambani u wato teknolojiyadda iyo dhaqaalihiiba haysta ay shirkad sharing ah ku noqdaan xidhmo walba annaguna oo ka faa'iideyna dhinaca gadar inay nagu taakulayso dhaqaale ballaaran dhismo ciidan qalabayn dhinaca hubka ah oo si farsamo oo yaryar oo kala dambaysa naloo siinayo oo aan doonayna inaanu kula wareegno awoodda dalka waxaanu tixgelin dheeraa siinayna wakiilada ay gadar noo soo dirsato annagoo danaha naga ilaashanayna ilaa xaddi aan ogolaalna in kursigana lagula fadhiyo fashil walba ha nagu ahaato maxaa la dhihi jiray maxay guddantiibuu fuudka ugu jiraa oo kale marxalado ah yaanu la soo marnay annagoo garanayna inay tahay arrin kharaad in waddanka iyo ummadda dhexdooda ay faashil ka ahaato in kursiga la igula fadhiyo haddana magaciisii dantiisu ugu jiraa inuu mahmaaha la dhahaa jirtay anu aada uma garanayo mahmaahda aada uma garanayo mahmaahdaas yaa jirtay marka mahmaahdaas annagoo adeegsanayna waxaan macnihii na soo martay oonu aqbalay inaan nalagula fadhiyo kursiga waxaas oo halgana waxaan u maraynay oona ogolaanayna in kursiga nalagula fadhiyo waa danta soomaalida danta ummadda soomaaliyeed yaanu ilaalinaynay sidii